الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وحليه هي سنن هي عادات وكونكم كما مولاه ويسقوا دجيي عادات كيسية سنن كيسنا وحا كمده inuu adoomadiisa imtixaano oo uu mariyo imtixaanaad kala duwan oo wajiye kala duwan leh kolba qaab iyo midab ku iimaanaya si rabbi tabaaraka wa taala uu imtixaano u muujiyo midkooda sabraya iyo midka aan sabraynin ka shukrinaya iyo midka aan shukrinaynin si loo kala saaro. ابتلاءاتكو سيابك لقديسان بيكو إيمانا يعني امتحاناتك ربي تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وحوليه هي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مييسا أركين إلا امتحانيو سند والبدحدي سمر مثل بقور كدبنا هدي الله امتحاني ما صور نقونيان ما توبت كينيان ما فهميان وحن صعده iyo sababtu ku yimid iyo sidii lagu qaadi lahaa ma fahmayaan wixii keenay ayay ku sii madaxadag yihiin. Allah tabaaraka wa taala imtixaanaadka adoomadiisa uu mariyay caamka waxa kamida inuu abaaro ku ibtileeyo, in roobka laga baajiyo, lagu yareeyo ama lagaba joojiyaba sanad laba sano waxay noqoto. ilaahi maamulkiisa way tabaaraka wa taala waxay adooma wax ka qaban karaan ma aha awood ma ay laha awood ay samada roob kaga keensadaan male awood ay dhulka wax kaga soo saartaan male dhibicida samada ka iimaanaysa hadii la waayana dhulka korkiisa nolol kama suuroobi karto. noole kuma noolaan karo wala badan lagu noolaan karin wala barigan lagu noolaan karin. sidaas daraadeed baa rabbigan quraanka kariimka wuxuu inoogu sheegay noole kasta noloshiisa noole kasta biyahaas asal u ah. biyahana ilaahi baa keena tabaaraka wa taala. fara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun bal kawarama biyahana al-'abaysan a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ما إذنك ضرورة كسودة شيء مسأنك سودة شيء نبي الرب تبارك وتعالى ويا سودة شيء كريه هدي خلقه يسوتها وما سودة شيء كران ربنا مكاني كران. الله تبارك وتعالى أدومدي سوى امتحان يا حكم ككتشر وحا كم ذا إنسان نظل امتحانه وأبار له امتحانه وحوله بابان وضدك قربابان إلهي حكمة دي سيكم تبارك وتعالى maxaa yeelay adoomada hadii barwaaqo loo daayo oo aan marna lagu imtixaanin dib iyo abaara lagu imtixaamin way kibrayaan. walaw basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. waliga hadaad barwaaqo ku dhex jirto kibir iyo isla weyni baa ku gali adoomada in qadarkooda la tuso iyo tabartooda ayaa rabbi tabaaraka wa taala xikmadiisa kamida inuu roobka ka ceshado wixii soo bixi lahaana sida lagu waayo halaag iyo marka la wajo xaalada khatar ah. Allah ba maamulaya tabaaraka wa taala laakiin wax kasta sabab uu leeyahay, daawana waa leeyahay, qaab looga baxana waa leeyahay. sidaas daraadeed baa waxa laga maarmaana xaaladahan oo kale markay yimaadaan in la qaato asbaabtii dhibkan ilaahay ku qaadi lahaa ee aan lagu sii madax adeegin wixii dhibkan keenay. waxa kamida asbaabtaasi quraanka kariimka ilaahay noogu sheegay tabaaraka wa taala inay adoomadu ilaahay u soo noqdaan, inay toobad keenaan, inay dambi dhaaf weydiistaan, in si wada jir ah iyo si gooni gooni aba ilaahay loogu soo noqdo allihii dhibkan keenay si uu u qaado. نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلكي وحو كويل ورتلك يو إلهي دنبداف ويديست أنصى نقض الصمد إذين فصحياه. نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سينا قومك سيدا سكويري
faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kana ghafaara ilaahay dambi dhaaf weydiista dunuubtu dhaafaaye haddaad dambi dhaaf weydiiso si dhaba ugu soo noqotaan yursilu samaa calaykum midraara samadii buu idiin fasaxaya idiin diraya iyadoo dararsan oo dhibco waaweyn ka imaanaya oo barakiya khayr watahay markaasaa waxaa ka dhalanaya biyaha samada ka yimid beero yaasiindooyin idinkii oo tarma caruurtii oo dhalata khayr fara badan dhulkii oo barwaaqoobaa ka dhalanaya xoolihii iyo bini aadamkii oo dhergaa ka dhalanaya maxay ku timid oo furuhu yahay faqultu astaghfiruu rabbakum allah dambi dhaaf weydiista oo usoo noqda xalku kaas waa addoommadu waa qaldameen allah bay ka xadhig furteen xukumkiisii xaqiisii bay qaar badanay boobeen sharcigiisii bay meesha ka saareen shuruuc bini aadan leeyahay bay maxkamadaha dhigteen dhiig xaaraanay daadiyeen xoolo xaaraamay cuneen way ku xadgudbeen xuquuqdii allihii in la weyneeyo la ilaaliyo xuquuqdiisa ahayd bay ku tunteen in tabartooda la tuso way marka ma rabtaan in la qaado marka faqultu astaghfiruu rabbakum ilaahay usoo noqda tabaaraka wa tacaala dhibkaasi la idinka qaado waxaa ka mid a asbaabtaas allah tabaaraka wa tacaala markii la rumeeyo la ateeco dhulku waa barwaaqoobaa dhulku barakadiisu soo saaraa samaduna khayraadkeeda iyo barakadeeda ay soo daysaa laakiin markii ilaahay lagu kufriyo oo la santaago oo la kibro oo ilaahigii kownkan abuurta laysku taago oo la inkiro jiritaankiisa oo muxuu ahaayey rabbi wuxuu xarimay lagu tunto markaasi rabbi tabaaraka wa tacaala addoommadiisa cuquuba imaanaysa markaas sidaas daraaddeed baa rabbigeen wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow dadka magaalooyinka degan dadka degmooyinka degani hadday alla ka cabsi iyo iimaan isku dari lahaayeen waxaan u furi lahayn samaawaadka iyo dhulalka barakaadka ku jira waxa khayraad dhulka ku jira soo furmi lahaa samaduna barakaadkeeday soo dayn lahayd laakiin wax weeye aliimaanu wattaqwa aliimaan oo saxiixa iyo taqwa oo ilaahay taacadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah asbaabta loo baahan yahay in la qaato xaaladdu markay sidan u murugto si ilaahay dhibka addoommada uga qaado waxaa ka mid a in la guto xuquuqda xoolaha sakada waajibka in la bixiyo qaraabada in la xidhiidhiyo in xoolahan ilaahay ku siiyey xuquuq baa lagu leeyahay alla ku waajibiyey oo masaakiinta iyo fuqarada u waajibiyey in la bixiyo haddii la ceshado sakadii xoolaha ku waajibtay allana dhibicdii kor ka imaanaysay buu ceshanayaa nabigeenna sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadku hadday sakada xoolahooda ceshadaan oo reebtaan samada dhibicdii ka imaanaysay baa laga ceshanoo ilaahay ka reebanayaa haddayna jiri lahayn bahaa'imta xoolaha iyo xayawaanaadka aan hadlinayn dembiga lahayn roob ilaahay kuwa ugu naxariisanaya haddayna jiri lahaynna ma istaahilaan in wax la siiyo dhibic lama siiyeen laakiin ilaahay intaasuu u naxariisan ciyaal yaryar duqay aan dembi lahayn xoolaha xayawaanaadka cayayaanaadka kuwaasaa ilaahay dhibicda u soo dejinaya kuwaasaa sababtooda loogu naxariisan wailaa ma istaahilaan dad sakadii diiday xuquuqdii xoolaha reebtay in roob la siiyo ma istaahilaan sidaas daraaddeed xuquuqda bixiya oo xoolihiina ka siiya wixii ilaahay ku waajibiyey ka bixiya waxaa cajiib ah wax yar tiro yar basanti yar oo sanadkii hal mar ah markii lagu fara adeego lagu bakhayloo la ceshado ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abaar keeno intay ceshadeenoo reebteen kumanyaalkood baa ka dhimanaysa walow ay bixin lahaayeen intaa yarta ana kumanyaalku waa u badbaadi lahaayeen waana u tarmi lahaayeen waa u barwaaqoobi lahaayeen wax yar bay diideen markaasay wax badan waayeen sidaas daraaddeed si ilaahay uu dhibka u qaado xoolaha xuquuqda ka bixiya waxaa la mida sidoo kale oo asbaabta ka mid ah in suuqyada iyo ganacsiga la hagaajiyo in dulmiga la daayo in qishkiya khayaanada la daayo in mucaamalaadka shareecada khilaafsan ee wax lagu raadinayo dadku joojiyaan in dadka la dulminayo beeca iyo shiraha lagu dulminayo la daayo xuquuqda la ilaaliyo
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحليه dadku hadday hal beega iyo miisaanka hadday nusqaamiyaan oo xuquuqdii dadka sida ku cunaan Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ku imtixaana abaaro iyo nolosho adkaata iyo madaxda oo ku noqoto madax xun oo jaa'iriin oo cadaalad lahayn madax xunna waa leedin ku salidi noloshuna cidhiidhi bay noqon way qaaliyoobiyo cidhiidhi bay noqon mid saddexaadna abaaro iyo roob la'aan baa dhici intaas oo maxay ku timid suuqi baa fasaaday si xun baa wax loo raadiyay ganacsigii baa kharimay waxaan ku cuninba waa la cunaa abayeel male ilaahi loogama baqayo mar hadday taasi dhacdo waa in roob la'aan yimaado waa sida nabigeena sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saas dara suuqyada hagaajiya oo xuquuqda iska ilaaliya oo madaalimta celiya oo si xalaala wax u raadsada oo mukhalafaadka sharciga iyo waxaad xaq darrada ku cunaysaan daaya hadaad roob rabtaan sidaasi waa nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inoo sheegay waxa kamida asbaabta iyada ah nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markay roob la'aantu dhacdo waa roob dooni jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laba siyood buu nabigu u roob dooni jiray sallallahu alayhi wasallam midda koobaad weeye inuu dadka bixiyo oo banaanka musallaha salaada ciida lagu tukan jiray inuu dadka u saaro oo halka laba ragcadood ku tujiyo oo u khudbeeyo oo ilaahay u baryo oo maradiisa kala wareejiyo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasi mid bay ahayd oo nabigu waa sameyn jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam talabaadna waxay ahayd iyo dariiqada labaad ee nabigeenu ku roob dooni jiray sallallahu alayhi wasallam khudbada jumcada inuu ku reeb doono maalmaha kamida nabigu khudbaynayo taagan oo minbarka saaran ayaa ninba masaajidka ka soo galay iridiis nabigu qaabilay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaasuu yiri rasuulullah rasuulki ilaahayow xoolihi iyo hantina halaagsantay jidadkiina waa go'een abaar baa dadkii baabi'inaysa ilaahay noo bari nabigu sallallahu alayhi wasallam gacmuhu taagay wuxuu yiri ilaahuna waraabi rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoon minbarka ka dagin wax daruura dhulka cirka ma saarnay asagoon minbarka ka dagin baa cirkii isqabsaday usbuuc kaamil oo roobku da'ayay usbuuc kaamil jumcadii labaad wala dhaqaaqi waay ma ninkiiba mise waa nin kale iridu hadana soo istaagay wuxuu rasuulka ilaahay roob iyo dhibic baa baabiisay ilaahay noo weydiin inuu naga joojiyo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahu buuraha iyo togoga iyo meelahaas ilaahu ku siidaa dadka korkoodana ka leex markiiba daruurtii waa leexatay meelahaas muxuu ahay baadiyaha iyo buuraha iyo dhulka sare iyo meelahaas iyo togoga ayay aad nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka khudbada inuu ku roob doono hadigiisay kamid ahayd salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa kamida asbaabta sugan ee roob doonta lagu sameeyo in dadka tabarta yar loo naxariisto masaakiinta in la caawiyo kuwa dhiban in dhibaatada lala qaybsado in la saacideeyo dadka in loo naxariisto loo danqado dadka dhibaataysan maxaa yeelay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay naxariista waa la idin naxariisanay cidda naxariisata ilaahay u naxariistaayo raxmadiisa hesha cidda naxariisanina looma naxariisto ihsaan sameeya idinkana waa la idin sameyn bixiya waa la idin siin haddaad ceshataanna waa la idinka ceshan sidaas daraadeed kan kula jooga ku dhex jooga miskiinka ah faqiirka ah naafada ah rafaadsan waxba aan heli karin adigana jeebkaagu qoyan yahay wax si sidaasa ilaahay dhibaatada ku qaadaya tabaaraka wa taala umad isu naxariisato isxambaarsata ayaa ilaahay wax siiya tabaaraka wa taala waxa kamida asbaabta loo baahan yahay nabigeenana ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dadka tabarta yar ee ducafada ah inay ilaahay baryaan oo duceeyaan لأن الدعاء waa uga dhowdahay markii adoonku baahan yahay rafaadku ka muuqdo oo diiftu ka muuqato ducadiisu waa uga dhowdahay ka kale ducadiis ilaahi waa uga dhowdahay tabaaraka wa taala nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam rubba ash'atha aghbar badana mid bus badan oo boor badan oo baahan oo rafaadku ka muuqdo law aqsama ala allah la abarra maanta haduu ku dhaarto walla inuu maanta roob da'aya ilaahay dhaartiisa waa uga rumaynay roobku waa iimaanaya
dadku ma fiiriyaan hadduu iridda soo garaaco lagama furo hadduu gabadh doono lama siiyo hadduu hadlo lama dhagaysto ilaahay agtiisa si qiimo weyn buu ku fadhiyaa hadduu yidhaahdo walle inuu maanta roob dii ilaahay tabaaraka wa tacaala dhaartiisa waa u rumaynaya roobkuna waa imaanaya addoommo noocaasa dadka ku jira sidaas daraaddeed baa fi saxiix al-Bukhari waxaa ku sugan nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wasallam ninka la yiraahdo Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ardaa ayaa wuxuu isu arkay dadka ka hooseeya inuu ka fadli badan yahay oo ka fiican yahay markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum warsidiinaba rizqa la idin siinayo iyo guusha iyo liibaanta ilaahay idin siinayo ma wax kale aad ku heleysaan kuwiinan tabarta daran baa ilaahay idin ku siinaya tabaaraka wa ta'ala riwaayadka qaar kamid ah waxay leeyihiin ducada ay ilaahay baryayaan iyo ikhlaaskooda ayaa ilaahay wax badan idin ku siinaya tabaaraka wa ta'ala dadka kuwooda marka tabarta daran ee baahan ee qarsoon inay ducada iyo baryada badiyaan oo ilaahay aad loo baryo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markii abaartu dhacday saxaabadu waa u yimaadeen wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam abaar baad ka sheegateen roobkii oo dib dhacay baad ka sheegateen allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu idin amray inaad baridaan inuu idinka aqbalana waa idin ballan qaaday allah baryo tabaaraka wa ta'ala markaasuu nabigu baryada badiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka in baryada la badiyo ilaahi la baryo loo toobad keeno taacada la badiyo xumaanta laga istaago dadka tabarta darna noo dhaxariisto sid xuquuqda xoolaha lagu leeyahayna la bixiyo sidaas ilaahi dhibaatada ku qaadaya naxariistiisuna ay ku iimaan dhulkiya samadaba ay kaga iimaan biidnillaahi tabaaraka wa ta'ala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا مغيث يا أرحم الراحمين اللهم أسغنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحيي بلدك الميت يا حي يا قيوم اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا حي يا قيوم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعله ما أنزلت لنا من الغيث قوة وبلاغا إلى حين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك